isku soo noqdo wanaagsan. Maanta waxaan ka hadlaynaa bastarka hortiina yaala ujeedaan. Bastarkaas ah sida loo sameeyo bastarada training-ka anagoo kasoo bilaabno from scratch ilaa dhammaad socod wanaagsan. Intaa kasoo bilaabno from scratch fail ba aadana daaqad cusub baa soo furana new cabirku inuu ku ahaado 1080 by 1080 halkana magaca rabtid ku qoranaysaa poster oo kale. Okay, markaa dhahaysa enter waxaan ka ilaalin tusin baa tahay color basic labada color aan isticmaalayo waa labada color colorka faantaha iyo colorka pinkiga decimal code-koon hadda idin tuso double click easy kan faantada waxa way F931E kan kaloo ah bubble-ka isagana waxa waaye 80/88 korka war wax ku qoraysa halkaas korka daarabtid inuu color-kan oo kale ku saaro decimal code-kiisa war wax ku siinaysa halkaas 80/88 ama website-yo waxa jira lagala soo qaato color-ka code-kiisa halkaas aasa waxa ku dhahaysa past don't okay marka anaga labada color waa noo diyaarsan yihiin EQBA okay marka waxaan rabaa inaan background isticmaalo background-ka soo isticmaalayo waxa rectangle tool baa meel banaan wax ku siinaysa click halkaas war wax gelinaysa cabirka aad soo dooratay 1080 by 1080 okay asa align center to center okay marka waxa soo dooranaysaa tool-ka la yiraahdo gradient tool double click easy marka waxa doonaysaa taas triple gradient kan click easy geesaha waa kaas kana easy color picture inuu ku doornaada casaan marka wixii dhan marka waa ka soo noqon casaan marka labada gees oo kalena color-ka bubble-ka baasna ku bahalkii furo ku soo furaya okay asna bubble ku soo marka saa tahay labadana soo jiidaysa labadan soo jiid kana iga jiid casaanka okay marka intaas waa enough log aska xirka control 2 marka waxa soo qaadanaysaa ellipse tool soo qaadanaysaa shift la qabo inahaas marka shift ellipse tool-kana waxa raba inaa wax ka bedelo tool-kaas soo qabsan halkana war wax ku siinaysa click marka saa ku soo qabto war wax u jiisa kor baasas oo ku jiisa inaa wax rabaa wax ka bedelo hadda war waa kaas waxba ka bedelay marka waxa soo qaadanaysaa sawirka iyo resource-ka dhammaan iyo font-iska isticmaalayo waxa kala degaysaa qaybta kulana Telegram-ka hoos baa soo dhigaya link-kiisa ayagoo diyaarsan sawirkan waxa isticmaalaya drag ku samee sawirku waa kaas garbaha wayna saas ugu simnaadaan marka waxaa layer-ka dalka ku olin waxay taagaysaa window F7 marka waxa soo furaysa taas ishaas yartaas path baasa marka waxa dhahaysa control C control F waa kaas xilad baa wada saaraysaa dhammaantood right click clean mask marka waa kaas sawirka madaxiisa baa marka aan arag Soomaa marka waxa pen tool garbaha clear baa ku siinaysa click labada garbood click markaas direction select tool baa soo qaadanaysa meesha electric baa kor u jiisa bakas intaas karim
marka sawirku wuxuu kusoo baxayaa taas. marka iligtaas soo furna clipping mask inaa waxaan rabnaa kan aan ku sameyno Trinity tool aan siino asaga viewgiisa. okay kaas aasa Trinity tool ba aasa kan picker toolka soo qaasa waxa ku fursa casaanka kana waa soo qaasa picker toolka waa inuu ku doorsanaada qalinka wax ku fursa bubble-ka. okay stroke ba aasa stroke aasa wax ku fursa xawaayir cadaan ah kana waa u kordhinaysaa laba ka dhigaysaa stroke ku soo laabo kaas iyo door uniformka igu soo laabo isaga kaas butuc ah igu door. okay marka kasoo soo baxa iyana marka iga qabo transform reflect marka koobi hadda dhayo ruux ka sameysmaya marka labo okay ide hakana marka isoo dhig bakaas. marka qofka magaciisa tusaale oo kale isoo weyne shift ii qabo log iska xir control 2 inaa waxaan rabnaa magaciisii iyo xogtiisii halkan aan soo gelino text tool ba aasa kiligiisii waxa soo qaanaya fanta isticmaalayo waxa waaye niyuuk fartaas niyuuk. okay siska ii weyne 48 ege dan okay magaciisa halkan title-kiisa soo qaansa alta drag ba isticmaalaysaa. okay xogaa hoos igaga soo dhig qabo control a qoraalka qabo control a ilaa waxaan rabnaa inaa slash font kan colorka iga bedel white easy yare marka center. okay marka magacii iyo title-kiisi waa qoranay marka wax noo dhiman inaad toobi hadda marka waxa noo haray taariikhda uu dhacayo training-kan text tool isoo qaad kilkalka igu sii waxa qoranaa waa maalintii iyo taariikhdii iyo xilliga uu dhacayo Monday 17 th ayay asaga isoo koobiye alka la qabo falaarta markay laba xabo ay noqoto hoos u soo jiid control a inaa wax rabaa wax ka bedelo bisha igu qor September 20keedii September 2025 sanadka. okay inaa wax rabnaa rectangle yaro halkaas aan ku qorno kan laakiin warkala kan dhexda ku jiro labada geesoodna wuxuu ku yahay bico dhexdana u weyn haddaan ku laabano bastarkeena waxa soo qaadana waa line kaas line tool halkaas wax ku siinaysa click adoo shift la haya inahaas ku deyso stroke wax ka dhigaysa u badanaysa 3 igu laabo stroke taas dhexda ah uniformka wax ka dhigaysaasna kaas detailska ah with profile-ka ah. okay waa kan markaas saabo ku soo baxay ku soo laabo control a inaa wax rabaa wax ka bedelo waxa ku qoranaya waa saacadii okay inaa wax rabaa dhammaan aan ka bedelo color iyo qabo shift adoo la haya dhammaantood color pickerka isoo qaad waxa ku furaya colorkaas casaanka ah
stroke baa iga raacay nan iga dheh marka saas bay kusoo baxeen. Okay, hadda marka waxaa noo dhacay xilliga uu dhacayo waa qoranay iyo saacaddii maalintii marka meesha uu ka dhacayo waa locationkii baa noo haray. Marka asaga waxaa soo qaadanaa rectangle tool halkana ku sawiranaa inahaas ugu filan geesaha iga soo yaree kalarkiisa waxaa ka dhiganaa gradient tool igu laabo kalarka waxaa ka dhiganaa toos inuu u qaato backgroundka kiisa oo kale double click easy geeska tan ii qabo color picture-ka casaanka igu fur kana iisoo qaad igu fur color picture-ka iisoo qaad bubble-ka iisoo qabo tan 90 degree igu wareeji. Okay, marka igu laabo asaga ka dhamaada asaga kan iisoo qaad marka stroke igu fur stroke-giisa waxaa ka dhigayaa waa 3 igu laabo asagana kaas dhexa ah ige uniformkiisana waa inaan wax ka bedelnaa dash kalarka iga bedel white easy stroke wax ka dhigay white marka soo kusoo baxaa isla eegana kan iga daaqada marka soo kusoo baxay waa saas labada geesahan hore oo alwaakaas waa ka muuqda geesahan damana xoogaa waa la qariyay halkaas ige locationkii baa isoo haray iyo text tool isoo qaad halkaas click igu sii Google Meeting oo kale. Okay, hadda noo haray waxa waaye iconka locationka kan isoo qaad icon location baa ku qoraysaa Chrome kugu jira copy image control V marka hadda saa u jeedaan waxa uu leeyahay backgroundka saa uga jirno waxaa tagaysa image trace kalarka image trace marka koodo expand ku soo baxdo toolkaas soo qaansa backgroundka white-ka baa wax taansa keyboardkaaga calaamadda delete-ka waa kaas marka hadda backgroundka waa noo ka saaray kalarka aad dirtay marka waa ka bedeli karnaa midabkiisa nagu daa casaan noo color picture-ka igu fur casaan casaanka iyo ruux baan yakan okay bubble-kaas igu daa yare shift adoo la haya soo yareys okay kan isoo yaree marka dhexda inaa wax raba iskugu aadiyo locationka iyo door shift adoo la haya Google Meeting-ka kan hoosana saddexda hadda marka waxaa noo haray meelihiina lakala soo xiriir lahaa contactigii email-yaha ku qoran lahayd rectangle tool isoo qaad inahaas igu sawir xoogaa hoos igu soo deji. Okay, marka farta aan isticmaalaya text tool isoo qaad iconka waxuu isticmaalayaa far haddaho type icon fartaas ayada icon anigu icon inaa soo dejiyo waqtigaas iyo waxaas dhan miga rabto asaga ii qoraya hadda markaa taabto xarafka control keyboardka markaa taabto waa w whatsapp oo wax kasoo qabanaya horay oo ah kaa rabno background kan log iga geli control 2 whatsapp ii koobiye iga bedel marka control a itaawo f e u keyboardkayga or waxa taawan hadda waa xuruuf baa taawanayo waxa waaye waxaan taawanaya waxa waaye waa xuruuf. Okay, marka aan ku qormo marka xogtii whatsapp meeshan kala soo xiriiri lahaa farta iga bedel new dhammaan resource-gan waxaa ka helaysaa Telegram-ka aan hoos idin soo gelinayo
hoos igu soo okay kan alt drag igu samee akademiyada magaceeda ku qoranaa